shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa waxay deeq raashin gaarsiisay dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho. wariyaha iyaga Kiin Cumar Makaraan ayaa magaalada Muqdisho warkaasi nooga soo dirtay. shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa deeq raashin ah waxay gaarsiisay dadka barakacayaasha ee ka soo barakacay abaarta saameysay gobolada dalka Soomaaliya ee ku sugan deegaanka kiiloomitir 13. dadkan deeqda la gaarsiiyay ayaa waxa ay ahayd raashinka noocyadiisa kala duwan. madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel Cabdiqaadir Xasan Sheekh ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixinayaa deeqdan ay shirkadda gaarsiisay dadka barakacayaasha ah. maanta shirkadda Somtel Soomaaliya oo kamid ah Dahabshiil Group companies ayaa waxay soo gaarsiisay deeq dad tabaalaysan oo aad u tabaalaysan oo markaad aragtay aad uga naxayso oo ka soo barakacay abaaraha ka dhacay wadanka Soomaaliya qaybtiisan koonfureed. shirkadda marka waxay go'aan ku gaartay markay maanta soo gaartay meeshan in ay si joogto ah ay u soo gaarsiiso waqtiyada soo xigxiga dadka imaan doona. dadka maanta wax la soo gaarsiiyay waxa weeye kuwii ugu darnaa oo maanta soo galay. marka insha Allah waa wadeena hadii alla idmo وبالله توفيق. هذا هو deeqda waxaa kamid ah raashin iyo baco iyo noocyada kala duwan raashinka iyo baco oo hadda waxa emergency-ga ah oo maaragtay ay diyaar u ah inay dadka hadda isticmaali karaan. raashinka waa raashinka daruuriga ah la cuno sida bariiska baasta bariiska sonkorta iyo saliid yar oo kid ayaan u soo sameynay oo dadka sida aragteenba kid ayuu 10 ay isugu xirnaa iyo bacdi ay meesha saaran lahaayeen hoyiga ka dhigan lahaayeen. deeqdan raashinka ah ee la gaarsiiyay dadka barakacayaasha ah ayaa waxa ka mahadceliyay maamulaha kaamka ay ku jiraan. maxamed xasan cali ali dhaha barakacayaasha dadkii meeshan oo martaa soo dajiyay oo xoogiis u sadaqeystay oo martaa bishaan ilaa bishii hore oo markay soo bilaabteen dadkii xoogiis u sadaqeystay oo martaa meeshan soo dajiyay barakacayaasha isku aruuriyay oo meeshan habeen iyo maalin dhex taaganahay. waad mahadsantihiin shirkadda Somtel oo maanta loo bilaabday khayrkii oo martaa ilaahay Ghafuur Raxiimka oo ilaahay ku soo qaaday oo maanta loo bilaabatay. waa alxamdulillaah ilaah baan ka mahadinaa ilaah baan ku shukrineynaa anagoo dadkii barakacayaasha horjoogu waheen oo bishaas iyo bishaan dhex taagneen maanta ilaahay khayr waxaa noo keenay Somtel inaan martaa kulliba oo maalin kasta joogto ah waxaan bixinayna intay tiraaho ilaahayaan ugu mahadinaynaa intii soo adeegtay intii Somtel oo martaa shirkadeeda u shaqeyso oo walaalaha ah muslimiinta ah inaad dadkan dhibaataysan oo tabaalac ka ah maalin kasta meeshan ka soo daadanayaan oo aniga habeen maalin dhex taaganahay maalintiiba 4 gaari 5 gaari meeshan ka soo daadanayso waxaan u haynaa lahayn muslimiinta Soomaaliyeed ilaahay guul Allah siiyo. deeqdan la gaarsiiyay ayaa waxa aysan ahayn mid dabooli karta baahida waqtigan ay qabaan. Kiin Cumar Makaraan, Somali Cable, Muqdisho.